ورحمة الله وبركاته. مقعي واسن عد وحن شوقا دلك كينيا قارهان عاصمة نيروبي. وحن هالكان نسو استاغي أرين أن ربينا أمد الصوماليات أو دن لو ذاقو قارهان أمد شوقتا صوماليا شوقتا دل كيني صوماليا ودن marka waxay tahay arintaas aan rabo in la wadaago arin aan shalay soo maqlay galabkii ilaa ay xalad dhan aan soo baaray ilaa saaki waxaan ku aansaday inaan baaritaanka sii wadin sabab la xiriira in waxaan inta aan baarayo ku mashquulsanahay baaritaankood inaan laga faa'iideysan oo isla markiiba aan la gudbin cudurkii waxayna ku saabsan tahay arintan cudurka corona ama covid-19 waxa way arintan shalay subaxii waxa la helay hal kiis oo dalka Kenya ah halkii kiis oo dalka Kenya markuu wasiirka uu cadeynayay waxa in xaqiiqada uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkan Kenya asigoo qodbadiisii wato waxa hadalkiisa kamid ahaa qoraalna uu ku soo dhigay meel in uu yiri waxaan ka hortageynaa dalkiisa iyo afaariiq qusay markuu ka soo baxay wuxuu yiri si aanan ugu gudbin cudurka Soomaaliya waa in aan jaadka ka buufinaa aanan u gaarsin cudur ayaka hadalkiisaas ninkaas uu ka hadlay laba arrimood buu inooga dhexbixi kartaa asigoo ka faa'iideysanaya labada xaaladood ee labada dal ka dhaxaysa iyo asigoo ka faa'iideysanaya cudurkan saf marka ee adduunka oo dhan ka waalay ayuu laba arrimoodba ay sameynayaan Kenya lama huraan waxa weeye waa cawska jiidal runt iyo ilkana waa la cadeeya in uusan naga taxadarin oo walaaltinimo dirisnimo iyo jacayl afrikaanimo aysan jirin Soomaalina way ogtahay adduunka oo dhan waa laga ogyahay marka wuxuu yahay muhiimadda hadalkeegu jaadka waxay yiri shalay si aanan ugu dhoofin cudurka dalka Soomaaliya waxaan ka buufinaynaa jaadka waxaan uga buufinaynaa sun oo wuxuu yiri daawir asiga sun oran laakiin waa sun daawan uga buufinaynaa fayraska dilaysa marka ma ahan laba arrimood buu inoogu soo buufinayaan jaadka waxaan shalay marka ku maqlay galabkii jaadka markii la raro oo diyaaradda la saaro Soomaaliya loo wado beerahooda ma ahan ee waa markii jaadka la soo raro oo already diyaaradda inay baxad ogoja laba arrimoodba inay ayaga u kala taal miiska u saaranta inay kala doortaan inay ku sameeyaan jaadkaas inay sun ah noogu buufiyaan oo qofkii cuna aanan la soo rogin iyo in dadkii laga helay corona lagu qofacsiyo ku qofaca ku neefsada jaadkii la dhaho kadibna Soomaaliya u tago cudurkii uu ku dhaco suntiina ay disho labadaba hadhowtana looma qabsanayo ayaga sababtoo ah waxa leeyahay Soomaaliya waa wadan liita oo wadan faqiira oo wadan aan ka hortag lahayn daawooyin fiican ma yaalaan ka hortag ma lahan waa wadan la ogyahay meesha maanta adduunka ka taagan yahay inakaan iskeenin macalaas marka waxa weeyaan cudurkaas habaabiye alla leeyahay laakiin cudurka intaana la gaarin suntaas ay Kenya maagan tahay ay ku baabi'i doonaan dhammaan ragga Soomaaliyeed wixii ana jaadka codsigan soo jeedinaa waxay tahay ummadda Soomaaliyeed inay foojignaato madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku codsanayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Khayre mudanayaal waxaan ku codsanayaa inaad bataatanba naga joojisaan jaadka wadankeena loo soo dhoofinayo maxaa yeelay wax faa'iido kuma qabno intaas oo milyan bay maalintii naga faa'iidaan Kenya aan iraahdo bishi iyo maalintii waa isku mid waa lacag Soomaaliya ka baxaysan dib ugu soo noqonayn min fadlan annaka markaan u baahan inaan ka hortag sameeyno taxadar sameeyno hana la ka joojiyo qaadka Kenya sidoo kale Kenya waxa wararkooda sirta ah helna kamid ah dadka cudurka uu ku dhaco oo Kenyaatiga in la dejinayo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya markii la dejina waa noo soo lugeyn karaan xitaa iska daa baabuur ama diyaarad way noo soo lugeyn karaan